niyo horta aad baa loo filayay doorasho aad loola socday ahayd dadka Soomaaliyeed meel bay joogaan ay shaqo hayaan waxaan sooran karaa doorashadaasi wax badan bay ka bedeli kartaa dhanka siyaasadda Soomaaliya Somaliland xagga amniga haddii noqoto wadahadallada Somaliland iyo Soomaaliya dhexdooda barnaamijyahaas oo waxaan sooran karaa Ciro waa nin la filayo inuu wax ka qabto oo xagga arrinta Muuse Biixi uu kaga duwan yahay aragtiis kaas leeyahay aragtida waayahay dawladdii Muuse hadda dhamaatay arrimo dhowr buu ka tagay ee ka mid tahay heshiiskii is-afgaradka ee Soomaaliland marka la gashay Ethiopia iyo dagaalada Laascaanood marka sidee ninkan arrintaasi uu xalin karaa ama uu la jaan qaadi karaa ma halkooda ku sii wada doonaa isbedel ay imaan doona isleedahay wallahi niyo waa tan la fiirinayo aragtida uu ninkaas ka qabi doono iyo ujeedadiisa waxyaalaha waxay ka mid tahay dadka Soomaaliyeed iyo ummadda Somaliland ee gobolada waqooyi ku noolba ay u baahan yihiin in wax laga qabto haddii aan la xagga colaadda SCC qaatumo iyo haddii noqon lahayd dhanka isafgaradka baadil ku dhisnaa xagga garanaysaa Ethiopia marka waxaan sooran karaa ninkan wax badan buu ka qaban karaa arrintaas ujeedadaasna arrimahan xagga ma qaban kartaa arrimahan ma garanaysaa Ethiopia ها مثلا وكل لابن هجيس كبده وحنا صورة إنه كل لابن كرو هدي لكن وسيوضو وأركتي ذا وحنا صورة كأني كاسي وحنا كبدل ما أنا كموسى هدي وسيوضو وجددي سي هيد إن بدي هجيس كسي وسيسعضو هدي أنا وحقبت كان أن أسيقاتهم وحلا قبل أرنتاس وحنا كأني كاسي سيداس وفشل مدونا لكن هدي هجيس صح يدولون سيد لما يسترن دن كان ولي ما ذو وحنا كأني كاسي ورو سي wada karaa Soomaaliland waxay noqon doontaa insha Allah taala meel wanaagsan oo lagu daydo hadda raftirkeeda waxa weeye xagga doorashooyinka waxaan oran karaa waa meesha kaliya ee shacabku ku argoosan karo in xaggan koonfurta Soomaaliyeed inay kaga daydaan baan insha Allah rajeynaya oo ay magaranaysaa ay dhankaas wax ka fahmaan qof iyo codka ay wax ka fahmaan ay ku argoostaan codkooda ku argoostaan qof kastana ay iyagu doortaan oo ay u baahan yihiin oo aragtooda ka dhaxarkaan iyo siyaasadooda qofkii aysan rabinna ay iskaga eriyaan marka ninkan anigu waxaan oran karaa dhankan Somaliland arrintaas in ay kaga daydaan maamul goboleedyada kale ee dalka haddii noqon lahayd Puntland oo wadadaas hadda haysa oo inkastoo aysan gaarin oo dee ay wax ka dhiman yihiin wali laakiin ujeedada aad iyo aad ها wadadaas way hayaan laakiin maamul goboleedyada kaleeto sida Jubbaland ma garanaysaa oo iyagu hadeer galmudug koonfur galbeed iyo waliba Soomaaliya oo hadeer aan oran karo qaab farsamaysan oo wali u muuqato hadeer insha Allah madaxweynuhu wuxuu wadaa marka waxa ay leeyahay halkaas lagu deedo gobolkaas aad ku wanaagsan wallahi ni horta dhanka siyaasadda dhanka amniga horta waxaan oran karaa waa sidiisii oo macnaha aragtidaan qofka la iska xiraayo qofka la qabanayo qofka ma garanaysaa wax dadka loogu sheeko wax xiran watana ma aha wax ma garanaysaa Muuse Biixi watana ma marka waa wax kulli iyagu ku abuuran oo siyaasad ay wataan oo ay aan oran karo waxay ka arkeen ixtiraaf in la helo iyo laba wad in la kala yahay iyo waxyaalo noocaas iyo wax dadkooda loogu sheekayo wadan beenu nahay iyo wadanka la iskama soo gali karo iyo marka anigu arrintaas ma aaminsan wax badan ka bedel maayaan qof kasta oo magaranaysaa aad iyo aad liinta sideed oo qasan tahay marka laakiin arrimaha kaleeto ee dadka Soomaaliyeed ka dhaxaya haddii ahaan lahayd xagga siyaasadda wada hadallada isoo dhawaanshaha amniga dhaqaalaha arrimahaas oo dhan insha Allah waxaan rajeynayaa in hore u socdaan